ciyaaryahan Magan Daahir Yuusuf oo ciyaara ciyaarta kubadda miiska waxa uu ka mid yahay ciyaaryahanadii ka soo tagay Soomaaliya dagaalada sokeeyay kadib isaga oo soo galay wadanka Holland sanadku markuu ahay 1992 waxaana uu bilaabay in uu sii hormariyo ciyaarta kubadda miiska oo uu horay u ciyaari jiray ciyaaryahan Magan Daahir Yuusuf ayaa sii wadida ciyaarta kubadda miiska ilaa uu gaaray sanadku markuu ahay 1996 oo uu ka mid noqday xulka qaranka kubadda miiska ee wadanka Holland isagoo sidoo kale u soo ciyaaray naadiyada kale ah TTV iyo Arnhem oo ka dhisan wadanka Holland sanadihii 2006 iyo 2007 haatan waxa uu u ciyaaraa naadiga DOV oo ka dhisan gobolka Friesland ee waqooyiga wadanka Holland ciyaaryahan Magan Daahir Yuusuf ayaa sidoo kale waxa uu ka qayb galay ciyaaro heer caalami ah isaga oo matalayay xulka qaranka kubadda miiska ee wadanka Holland isaga oo u soo hoyay guulo waaweyn xulka qaranka kubadda miiska ee wadanka Holland iyadoo oo taas laga ambaqaadayo ayaa xiriirka kubadda miiska ee wadanka Holland ee marka magaciisa la soo gaabiyay loo yaqaano NTTB waxa ay guddoonsiiyeen ciyaaryahan Magan Daahir Yuusuf abaalmarinta sanadka ee ciyaarta kubadda miiska ee sanadkii aanu ka soo gudubnay ee 2008 kadib markii koob loo dhigay 12 ciyaartooy ee ugu horeeya kubadda miiska guud ahaan wadanka Holland kaas oo uu ugu dambeyntiina ku guuleystay ciyaaryahan Magan Daahir Yuusuf kadib markii uu galay kaalinta koowaad ee ciyaarta kubadda miiska ee guud ahaan wadanka Holland tababare Valim de Veres oo ah macalinka ciyaaryahan Magan Daahir Yuusuf ayaa Universal TV u sheegay in ciyaaryahan Magan Daahir uu maalinba maalinta ka dambeysa uu ka sii wanaagsanaanayo tan iyo markii uu macalinka u noqday isagoo u rajeeyay ciyaaryahan Magan Daahir mustaqbalka in uu kaalin ka wanaagsan tan uu maanta taagan yahay Magan waa ciyaaryahan aad u wanaagsan una daacad ah ciyaarta Magan waxa uu ka mid yahay ciyaartooyda aan aadka u jecelahay sidoo kale shacabka reer Holland ee xiiseeya kubadda miiska way jecel yihiin waana nin isku kalsoon ciyaartana aad u jecel waxaan u rajeynayaa mustaqbalka inuu Holland u soo hooyin doono guulo waaweyn dhanka kale wasaaradda maaliyadda ee wadanka Holland oo uu shaqeeyo ciyaaryahan Magan Daahir ayaa gaar ahaan qaybta canshuuraha ayaa u aqoonsatay ciyaaryahan Magan Daahir shakhsiyadda sanadka 2008 wargeyska sanadlaha ah oo ay soo saarto wasaaradda maaliyadda ee wadanka Holland ayaa boggiisa ugu horeeya ku soo daabacday sawirka ciyaaryahan Magan Daahir iyadoo lagu sheegay Magan in uu yahay qof shaqadiisana si daacadnimo ah u gutay xirfadiisa ciyaareedna guulo waaweyn ka soo hoyay marka loo eego dadka kale ee ajnabiga ah ee ka howlgala wasaaraddaasi iyadoo sidoo kalena ay arintani ay noqotay hadal haynta maalmahan ee saxaafadda iyo shacbi weynaha wadanka Holland Soomaalida ku nool wadanka Holland ayaa u sameeyay ciyaaryahan Magan Daahir xaflad soo dhaweyn ah oo ay ugu hambalyeynayeen Magan magaalada Ableshqa oo ku taala gobolka Friesland ayaa waxaa lagu qabtay xafladan iyadoo oo Soomaalida xafladaas ka soo qayb gashay ay aad ugu faraxsanaayeen guusha uu soo hoyay ciyaaryahan Magan iyaga oo sheegay in Magan uu u soo hoyay sharaf dhammaan shacabka Soomaalida iyadoo dadka xafladaasi ka soo qayb galay ay istusiyeen in Magan uu u noqon karo darsi ay ku dayadaan dhammaan Soomaalida ku dhaqan guud ahaan wadanka Holland sidoo kale ciyaaryahan Magan Daahir Yuusuf ayaa dadkii halkaas isugu yimid ugu mahadnaqay qaabka qiirada iyo wadaniyada leh oo ay u soo dhaweeyeen ciyaaryahanka caanka ah ee Soomaaliyeed Magan Daahir Yuusuf oo ciyaara ciyaarta kubadda miiska una ciyaara xulka qaranka wadanka Holland iyo naadiga DOV oo ka dhisan gobolka Friesland ee waqooyiga wadanka Holland ayaa waxa uu noqonayaa ciyaaryahankii ugu horeeyay oo asalkiisu ka soo jeedo wadamada qaaradda Afrika gaar ahaan wadanka Soomaaliya oo heer noocan oo kale ah ka gaara ciyaarta kubadda miiska ee wadanka Holland iyadoo lagu naaneysay mucjisada kubadda miiska waana arin sumcad iyo sharaf ba u leh ummadda Soomaaliyeed oo muddo ku soo dhex jirtay dhibaatooyin iyo dagaalo sokeeye iyadoo sidoo kalena dhalinta Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ay u tahay in ay ku daydaan talaabada uu qaaday ciyaaryahan Magan Daahir Yuusuf Maxamed Abuukar Sheekh Xasan Maxamed Deeq Universal TV Snack gobolka Friesland ee wadanka Holland